rumayso ama harumaysan qofka aan isla weynayn ee degan waa qof isugu kalsoon halka qofka isla weyni oo ogol yahay nuqsaankiisa kalsooni darada ee isku qabo rumayso ama harumaysan heesta loo yaqaano Golomi Sunday waa heesta ugu halista badan heesaha la qaaday waxa ayna dishay inta badan gaaladii dhageysatay maadaama heesta ay ka buuxaan murugo iyo baasaysi taasoo ku kalifaysa qofkii dhageysta inuu isdilo iska jir inaad YouTube-ka iyo wixii la mid ah heestan ka raadiso haddaad Ingiriiska si fiican u taqaan rumayso ama harumaysan caanaha dameeraha waa kuwa ugu dhow caanaha insaanka rumayso ama harumaysan waxaa jira askari Japanese ah oo muddo 29 sano ah ku dhuumalaysanayay buuraha waxaana u sabab ahayd inaan loo sheegin inuu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida rumayso ama harumaysan 16 sano kasta kadib waxaad bedeshaa saaxiibadaada waxaadna samaysataa saaxiibo cusub markii laga reebo hal ama labo saaxiib oo aad isku xeel dheer tihiin rumayso ama harumaysan culimada cilmu nafsiga waxay sheegeen in dadka markaad ugu waranto qorshahaaga mustaqbalka oo ay kula ogaadaan waxaad noqotaa qof aan juhdi badan ku bixin sidii u rumayn lahaa sidaa awgeed qorshahaaga mustaqbalka ha ahaado mid ku qarsan